waxa maanta soo gaadhay xiriyaha qaxoontiga ee dhadhaablaanteeda ifo deeqdii iyo taakuleyntii dowladda Soomaaliland iyo shicibkeedu ay ugu talagaleen dadweynahooda Soomaaliyeed ee aafada abaaraha iyo colaaduhu ka soo barakiciyeen deegaanadii ay ku dhaqnaayeen. wafdigan ayaa markii ay muddo 2 maalmood ururinayeen xogo fara badan oo ku wajahan baahida taala goobaha ay ku socdaan u arkay in quutal daruurigu uu yahay madhaafaanka rasmiga ah ee ay rabaan dadka waqtigan xaadirka ah ku dhaqan xiriyaha qaxoontigu. haddaba saaka subaxnimadii hore ayaa safiirka Soomaaliland u qaabilsan arrimaha xashka Axmed Aadan Dagaal Axmed Safiina oo wafdigan hordhac u ahaa uu kala wareegay 7 baabuur oo sida raashin ka kooban bariis sonkor daqiiq saliid iyo caano ganacsatadii loo igmaday inay fuliyaan hawshaasi. wasiirka diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed iyo wafdigiisa uu hogaaminayo oo uu kamid yahay wasiirka ganacsiga dalxiiska iyo warshadaha Soomaaliland Mudane Cabdirasaaq Khaliil Maxamed ayaa maalinta Britoola ah soo gaari doona xirada qaxoontiga ee Dhadhaab iyagoo gacantooda ku qaybin doona raashinkaasi kuna gaarsiin doona dadka tabaalaysan ee ku sugan xiriyaha qaxoontiga ee xarunta Ifo. haddaba safiirka arrimaha xashka u qaabilsan Soomaaliland Axmed Safiina oo ah xubin aad u firfircoon oo aqoon iyo khibrad iyo way aragnimo dheeraad ah u leh hawlaha mashaariicaha gurmadka ayaa sheegay in raashinkan ay ugu talagaleen dadka tabaalaysani uu dhan yahay amaba uu ku filnaan doono 6200 qoysas ka kooban marka si dheelitiran loogu qaybiyo. haddaba Axmed Safiina isagoo faahfaahin kooban ka bixinaya waxa uu yidhi waxa Britoola imanaya insha Allah ta'ala wafdigii dowladda Soomaaliland ka socday oo gudoomiyana noo ahaa Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed wasiirka diinta iyo awqaafta iyo muxuu ahaay Cabdi Khaliif oo qaybinta insha Allah ta'ala ka soo qayb galaya iyo muxuu ahaay Indo oo xildhibaana Maxamed Aadan oo culimada waaweyn ee dalka Soomaaliland dowladda Kenya saaxiibada Soomaaliland oo ugu horeyso South Sudan safaaradda South Sudan oo nagala soo qayb galaysa hadii la yiraahdo iyo safaarado badan oo kala dowladda Soomaaliland saaxiib la iyo dowladda Kenya ugu horeeya Faarax Macalin ayaa insha Allah ta'ala Britoola wafdiga ay wada socdaan maanta aan ka soo ambabaxay Nairobi caawa Gaarisa ay joogaan Britoola subaxnimadan anaga wada socno dhamaan ayaan imanayna insha Allah ta'ala saan ugu qaybino 6200 oo qoys raashinkii loogu talagalay. halkaasi waxa uu dhaxdiisa ka dhiibtay mid ka mid ah ganacsatadii raashinkaasi loo igmaday oo magaciisa la yiraahdo Sheekh Shujaac. bismillaahir rahmaanir rahiim oo ilaahay baa mahad iskale subhanahu wa ta'ala marka hore ka gadaal waxaan mahad u celinaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland shacabka Soomaaliland arintaas oo uga mahad celinayno dareenka iyo walaalnimada ay u muujiyeen dhibka ku dhacay walaalada Soomaaliyeed ee abaarta ku habsatay. ugu dambeyntii waxa halkaasi hadallo duco iyo mahadnaq isugu jira ka soo jeediyay gudoomiyaha culimada awdiinta xirada Dhadhaab Sheekh Cabdiraxmaan Dawiil. codsi aan ka codsanayno ee wasiirada iyo maamulka socda inay halka ka sii wadaan maxaan ku yiraahdaa gacanta ay qaadeen walaaladana guud ahaan ay naga gaarsiin salaan kaliya laabka soo gooday ayaanu dardaarmaynaa. si kastaba arintu ahaatay talaabadan ay ku kacday jamhuuriyadda Soomaaliland madaxdeeda iyo shicibkeeda ayaa noqonaysa mid kor u qaadaysa sharafta iyo karaamada sumcadda qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ay aad u soo dhaweeyeen dadweynaha ku dhaqan xiriyaha qaxoontiga ee Ifo noqotayna mid waa cusub u berisay dadweynaha ku dhaqan xirada Ifo. Cabdullaahi Cabdi Cali TV-ga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xiriyaha qaxoontiga ee Dhadhaab.